بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنكو dad muslimiina oo heer shukur sheekh adeeryaalka ayaa noola yeeray waxaana la keenay meel la yiraahdo Daykaaga Cate oo 2015 lagu sameeyay dhulboob oo aan maaragtay cid loogu aabayeela jirin dadna lagu dilay dadna lagu dhacay nimankii iskalana in la xiray guri lagu xiray oo aan la geenin meel xabsiga ama meel dawlad ka shaqeyso xilliga sharciga sidoo ahaa nidaamka soo ahayna ummadda muslimiinta iyo dawladda way og yihiin annaka waxaan nahay dadkii nabadoonyadii dhulkaas joogay oo maaragtay heer shukur sheekh hadda maanta ay u soo yeereen waxaa laga rabaa dadka muslimiina oo lagu duubay dhulkaas amar la'aan qof walba meesh lagu duuwayo qofka muslim waxa loo baahan yahay dhul sharciya ay ciida leedahay ama maaragtay wax sharciya in dhulkaas lagu la duugo ma aysan dhicin marka dadka cabashay waxa ka yihiin ninka la yiraahdo Ismaantiirey oo maaragtay dhintay xilli hore oo dadka dhulboobka ku sameeyay kamid ahay haddana waxay leeyihiin annaka dhulkeen xilligaas boobaan wala sameeyay dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa haddii hormuud sharci ay u haysato oo sifa sharciya ay maaragtay ay u leedahay inay la timaado annaka oo maaragtay nabadoonyada ah inay noo keenaan oo annaka haday maaragtay cid qaldan yihiin aan qaban haday dawladda maaragtay nimankaas qaldan yihiin ay wada arkaan 15 maalmood amarka lagu bixiyay oo walaalkay ku bixiyay dhulka oo kama dambaysa dhulka ku yaalo Daykaaga Cate meesha la yiraahdo xerada dibida dusheeda waaye haddana waxay ku dhagan tahay meesha la yiraahdo Barakaad marka waxaan rabnaa jawaab degdeg in laga helo dawladda oo dhulkaana dadkii iskale meydka looga bixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan dawladana ay soo farageliso annaka waxaan dhahnaa nabadoonyada wax cili lahay wax qabsa lahay dadka haday qaldan yihiin cili lahay haddii ay maaragtay laga qaldan yahay wax sheegi lahay oo nabadoonyadii aan maanta cid naga maqan ma jirto waxaan dhul taaganahay qabriyaha gudihiisa aan taaganahay cid naga maqan ma laha waxa joogta akhyaartii waxa joogta culamaa u diinkii waxa joogta nabadoonyadii marka waxaan rabnaa maanta oo maaragtay taariikhda ay tahay 2000 bishii 6 sodonkeedii marka waxaan rabnaa 2024 bishii 6 sodonkeedii inay maanta tahay dadkana 15 maalmood loo qabto waa hadda bisha caawa koow ah in maaragtay 15 keera dhulkan lagu soo afjaro hormuud wacad haday haysataa la timaado haday haysanina dadkan oo la fahmaha ay ku duugeen sida ugu dhaqsiyaha badan ha ka bixiso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh